dhul haddii ay dawladdu leedahay oo deydeyso meesha ay dhulkaasi yaalla ha u doonato waxaanu ugu baaqaynaa wasaaradda hawlaha guud inay sharciga ku soo noqoto wixii ay dawladdu leedahay in ha doonato oo iyadaa xaq u leh laakiin anugu dhulka shacabka aanu mas'uulka ka nahay naloo soo doortay annagaa shacabka uga mas'uula haddii meeshayda dheeman laga helay dahay yimaadaan haydaan sicudhay dheeman baa laga helay ka guud meeshan waa meesha hargeysa biyaha looga soo dhaamiyo waba suicide ba dawladdu waxay sheegtay in dhulkan ay u qorshaysay in laga dhigo aaga warshadaha maxaad ku diidaysaa idinku dhulkan dhul warshadeed noqdo wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta ee Soomaaliland waxay maalinimadii shalay toolahayd sheegtay ama ay ka hadashay dhul maalmihii la soo dhaafay oo muran ka taagnaa oo ku yaala bariga magaalada Hargeysa dhulkaas oo dawladdu ay sheegtay inay ka dhigayso warshado balse ay soo baxeen muranno la xiriira in dad dhulkaasi iyagu sheegeen inay leeyihiin ay diideen warshadahaasi la sheegay laga dhigayo xildhibaan ugu horreyn soo dhaweynaya wasaaraddu waxay shalay toolo ugu baaqday dadkii dhulkaasi sheeganayay in ciidii mulkiyeedii haysato dhulkaasi ay keenaan dhulkana laga dhigayo warshado balse aad u aragtaa adigu arrimahaas adeer anigu waxaan u arkaa dhulkan samayntiisa faylashiisa qorshayntiisa waxaan oo dhan dawladda hoosaa ku shaqale horaana loo qorsheeyey dadku faylal bay haysteen faylashana qaranka iyo caasimaddaba waxa uga mas'uula dawladda hoose sidaa daraaddeed anigu waxaan aaminsanahay dhul haddii ay dawladdu leedahay oo deydeyso meesha ay dhulkaasi yaalla ha u doonato laakiin anigu waxaan ka hadlayaa dhulka shicibka ah ee anigaygan aan ku jiraa aan wax ku leenahay ee qoysasku ku leeyihiin ee asalkii reer Hargeysa dhulkan wax ku leeyihiin kolkaa anigu ma qabo inay dhulkaasi yahay dhul maanta lagu wada hadli karo oo la odhan karo sharcigiisii ha la keeneeyaan la keenin wixii ay dawladdu leedahay ha doonato oo iyadaa xaq u leh laakiin anugu dhulka shacabka aanu mas'uulka ka nahay naloo soo doortay annagaa shacabka uga mas'uula xildhibaan mas'uuliyiintu hadlay wasaaradda hawlaha guud waxay sheegeen in dawladdiina hoose ee Hargeysa ay arrintan ka wada socdaan marka ma la soo kala mudanayaasha dawladda hoose Hargeysa iyo maamulkiinu waad kala socotaan maya annaga iyo maamulkayga iyo fulinteedii iyo waxaan oo dhan ma socono kala socono meeshana kala soconi ma taalo meesha waxa lagu xisaabtamayaa sharci waxa lagu xisaabtamayaa xeer 17 waxa lagu xisaabtamayaa xeer 23 2019 kolka waxaan waa xeer qoran oo la isla garanaya ee maaha hebelow saasaatiri hebelow saasaatiri waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda hawlaha guud inay sharciga ku soo noqoto xildhibaan dawladdu waxay sheegtay in dhulkan ay u qorshaysay in laga dhigo aaga warshadaha maxaad ku diidaysaa idinku dhulkan dhul warshadeed noqdo adeer waxaan oo dhan waxa ka horeeya assessment waxa ka horeeya in la baadho waxa ka horeeya ciddii lahayd in la ogaado waxa ka horeeya dhulkanu ma yahay dhul warshada ku wanaagsan adeer meeshan waa meesha Hargeysa biyaha looga soo dhaamiyo waba suicide ba kolka adeer meeshan meel warshadeed maaha meelaha warshadaha assessment baa la sameeyaa aqoon-yahanada loo dira halkay ku haboon tahay baa loo dhigaa inta TV laysa soo taago lama oran halka waxaanu ka dhignay xabaalo ama warshado maaha waxaan dhulkan waa dhul beereed waa dhul daaqsimo waa dhul biyo mareena waa dhul aynu ugu talagalnay in Hargeysa mustaqbalka qayb ka mid ay biyaha ka heli doonto sida darar weyn oo kala isna about inta la iska yimaado in la yiraahdo dhulkan waa warshado qaranku isaga ka mas'uula meesha wax ka dhigayo iyo meesha kalaba in laakiin dawladda hoose iyo mudanayaasha dadka dhulka sheeganaya ay inay ka wada socdaan oo laga wada hadlo weeyaan ugu dambayn maxay tahay fariinta u dirayso wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliland adeer wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliland anigu waxaan u dirayaa xeer 23 iyo xeer 17 waxaan ahayn oo wada shaqeynaa oo meesha yaala ma jiro umadu xeer bay ku wada shaqeysaa waxa lagu kala shaqeeyaa in kala xadeynta wasaaradaha lagu shaqeeyaa kala xadeynta shaqooyinka lagu jaangooyaa waxaan adeer ma aha in wixii laga wada tashto tala qaran una iska noqoto weeyaan imika aniga dhulkayga ma aha in anigu aan leeyahay dhul beereedka hadii la doonayo in la iga qaado waa in la soo sheegaa in dhulkayga hoostiisa dheeman laga helay ama baasrool sida salaxleeyay waxa ay ku mulki karto dawladdu waa la yaqaanaa dhulka dadka landlordska dhulkooda wax laga mulki karo waa qodobo qorano cad haddii meeshayda dheeman laga helay dahay yimaadaan haydaan sicudhay dheeman baa laga helay ka guur shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeegga e-dahab